xisbiga kaliya ee maanta Soomaali midayn kara ee iyadoo midaysan inay qoomiyadaha kale Itoobiya la qabto ka shaqeyn kara waa xisbiga barwaaqo dacaayadka laga fidinayo waxyaalaha la akhriyo waxaad ogaataan dadka fidinaya badankoodu inay ayna dan kala ahayn mabaadiida maanta ay sheeganayaan badankoodu waa dadkii shalay dhibaataynayay shacabkooda waa dadkii shalay qowleysatada ahay la shaqaysanayay dadka gumaysanayay waa dadkii shalay toona dhibaatada iyo hagaagabada ka shaqeynayay dadka maanta raba inay uga faa'iideystaan cadifadaha soo kordhay ee dimuqraadiyadda ay keentay inay ku dhaleeceeyaan mabaadiida iyo xisbiga cusub ee barwaaqo xisbigaas ila taageertaan baan rabnaa xisbigaasi horumar iyo nabad iyo sinaan iyo inaan xaqeena Itoobiya dhexdeeda ku qaadano ayaa mabaadidiisa ka tirsan annaguna kuwaas u halgamayna wixii khaldana fagaaraha qaranka inagoo fadhina yaan kaga doodayna oo leenahay xaqna waxaas naba qabato waxaasan rabnaa taa laftigeeda arrin in la bogaadiyo u baahan shalay toole xuquuqul insaanka halku mariyo waad ogtihiin kufsigu halku mariyo waad ogtihiin boobku halku mariyo waad ogtihiin dilku halku mariyo waad ogtihiin maanta waxaas oo dhan ma jiraan marka qofka raba inuu kuga cabsiyo mustaqbal halisa soo socda waa inaad weydiisaa oo shalay maxaan haystay oo maanta oo ka daran gaari kara inaad weydiiso weeyaan in maaragtay ajandayaal beenbeena oo qaarkood ay ka soo shaqeeyeen xoogagii isbedelka diidkan ahaa ee kuwii laga xoroobay ahaa laftigoodu ay lacag ku bixinayaan inaad qaadataan oo dhan u dhigtaan maaha Soomaalimada ha waarto isdhexgalka qoomiyadaha iyo isjacaylka ayaan ka shaqaynaynaa in loo adeegsado in xaqa Soomaali la soo dhiciyo iyadoo ay sax tahay in loo adeegsado ajandayaal midab kala sooca oo la rabo in lagu dhibaateeyo qoomiyadaha kale ee deegaanka inagula nool wax la aqbali kara maaha diiniyana sax maaha aqliyana sax maaha Soomaalina dhaqan uma aha marka cadifada Soomaalinimadu maaha macnaheedu in la dagaalamo qoomiyadaha kale nacayb jinsi nacayb in la abuuro maaha oo la yiraahdo shalay waxaan arkay kuwa dad cibaadaysanayo oo qoomiyada kale ama diimo kale oo jijiga ku soo baxay sawirooda wareejinaya oo leh Soomaalinimadii wax u dhintay uma dhimayso Soomaalinimadu iyo ismalaha wada noolaanshuhu waa laba shay oo kala gaar Soomaalinimadu waxa weeye kuwa sidaali waa kuwa Soomaaliisi kala geynaya weeye laftigooda oo Soomaaliisi kala gaxaynaya oo magacyo qabiil kala bixinaya weeye kuwa raba inay magac Soomaali ku shaqeystaan oo ay naga hor keenaan qoomiyadaha kale iyo dad yawa kale inay wada noolaana ay tahay arinta xooga in la saaro weeyaan taariikhdeena cid xaqiri karta ma jirto maanta meel waxaan kaga hadlaynaa dugsi kasta u macdaraynaa waa shuhadadeeni waa dadkeeni u halgamay dhiigooda u daadiyay dalka marka taasna waa halkeeda cadifad Soomaaliin kala kiciyo in dadka aan leeyno iyo qoomiyad kale aan la dagaalanno barnaamijka lagu hoos wadana waa khalad ka saxdara waa wixii keenay August 4 hamlaha simint dad masaakiina oo hooyooyina oo gabdho guriyada ku jira in la gubo waa wixii keenay fikirkaasi waxaan aragnaa asaaskiisii oo la sameeyay aragnaa iyadoo gabaad laga dhiganayo nationalism Soomaaliyeed la dhisayo hadii Soomaalinimo wadanimo ay jirto waa loo joogaa cidda ah iyo cidda aan ahayn cidda danaha dadka Soomaaliyeed ka doorata waxyaalaha khaldan iyo cid kale waa loo joogaa waa la arki doonaa mas'uuliyiinta xisbiga barwaaqo ee heer deegaan taniya maalinka isbedel ku dhacay waxay u heelanaayeen oo u taagnaayeen dhammaantood meeshay joogaanba in sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed la ilaaliyo laakiin uma taagna in ummadda Soomaaliyeed sharafteeda la ilaaliyo in laga dhigo in nacayb dadka kala la abuuro taa in laga taxadaraan ka dardaarmaya